calaykum daawade waa mar kale iyo muuqaal kale. Afghanistan sirdoonka Taliban iyo kuwa Mareykanka ayaa kulan degdeg ah yeeshay. Maxaa ku soo hagaajiyay kulankan qarsoodiga u dhacay madaxa sirdoonka William Burns ee Mareykanka iyo Mullah Baladar ninka hogaamiya Taliban? Kulankooda waxa uu ku soo dhamaaday Daesh oo shirka ka shiftay kulankaas, waxaana ay sheegeen Taliban ay yihiin fuliyaasha qorshaha Mareykanka. Muuqaalkan ayaan ku soo koobayaa. haddii ay tahay markii ugu horreysay oo channelkayga ku soo gaaro, magacaygu waa Yaxye Maxamuud Maxmed. wixii bixis iyo la joogis waa ay kuu furan tahay, balse waxaan kaa codsan lahaa inaad saaxiib igula noqoto bartan oo aad channelka subscribe saarto. Hagaag daawade, William Burns iyo Mullah Baladar ayaa kulan qarsoodi ah yeeshay. wargeyska Washington Post ayaa qoray warbixin la xiriirta in madaxa hay'adda CIA William Burns uu kulan qarsoodi ah la yeeshay Mullah Abdul Ghani Baladar oo ah hogaamiye ku-xigeenka dhanka siyaasadda ee ururka Taliban. kulankani waxa uu ka dhacay caasimadda Afghanistan ee Kabul. sida laga soo xigtay wargeyska laga leeyahay dalka Mareykanka, waxa uu kulankani dhacay Isniintii oo taariikhdu ay ku beegneed 23 bishan Agoosto, wuxuuna ahaa shir heerkiisu sareeyo isla markaana dhexmaray xubno ka tirsan maamulka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo hogaamiyaha Taliban tan iyo markii kooxdu ay qabsatay Kabul. wargeyska Washington Post ayaa sheegay in CIA-da aysan weli ka hadlin warka ku saabsan kulanka, balse saraakiil magacooda qariyay ayaa kulankaas dusiyay. Mullah Ghani Baladar oo la wariyay inuu la kulmay agaasimaha CIA-da Mareykanka ayaa ka mid ahaa aasaasiyaasha ururka Taliban, kaas oo 11 sano ka hor lagu qabtay howlgal ay si wadajir ah u sameeyeen CIA-da Mareykanka iyo Pakistan, waxaana xabsiga ku jiray 8 sano. warkan ayaa imaanaya xilli ay socdaan dadaalo militari iyo kuwa diblomaasiyadeed oo aan kala gool ahayn oo ay wadaan wadamada reer galbeedka oo garoonka diyaaradaha ee Kabul loogu soo daadgureynayo dadka ka baxsanaya Taliban. Taliban ayaa sheegtay inaysan ka dari doonin waqtiga ama waxba aysan ku dari doonin waqtiga loo qabtay ciidamada shisheeye inay kaga baxaan dalkaas, kaas oo ku eg 31 bishan Agoosto oo kaliya maalmo ay ka harsan yihiin. sida laga soo xigtay wargeyska Washington Post, taariikhda la cayimay oo isku dayga Mareykanka oo in lagu daadgureeyo muwaadiniinta iyo shaqaalaha magaalada Kabul ayaa laga yaabaa inay ahayd muhiimadda William Burns ula kulmay Mullah Abdul Ghani Baladar. madaxweynaha Mareykanka ayaa cadaadis kala kulmaya xulufadiisa oo weydiisanaya in ciidanka Mareykanka ay ku sii sugnaadaan garoonka Kabul inta ay daadgureynta kumnaanta qof socoto. dadka laga qaadayo halkaas waxay ka kooban yihiin kuwa Mareykan ah, reer galbeed kale iyo muwaadiniinta Afghanistan ee ka qaxaya maamulka Taliban. Isniintii ka hor inta uusan soo bixin kulanka sirta ee Taliban iyo CIA-da, waxaa afhayeenka waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka Ned Price la weydiiyay sababta saraakiisha dalkaas aysan ula xiriireen Baladar si ay ugu galaan daadgureynta ama ay ugula hadlaan daadgureynta dadka. wuxuu ku jawaabay, wadahadalladeena Taliban waa howlgallo farsamaysan ayuu yidhi. waxay diiraddu saarayaan howlgallada dhow iyo ujeedooyinka gaaban, waxaanay ku socdaa Kabul waa kuwa hadda aan diiradda saarayna ayuu raaciyay. Joe Biden ayaa ku tilmaamay howlgalka ka socda garoonka diyaaradaha ee Kabul mid ka mid ah kuwii ugu weynaa uguna adkaa taariikhda soo mara dalkaas. Biden ayaa cadaadis xoogan kala kulmaya xulufadiisa oo ay Britain ka mid tahay si loo kordhiyo joogitaanka ciidamada Mareykanka ee garoonka diyaaradaha ee Kabul. goor sii horeysay xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa isna sheegay in wadanka uu xiriir la sameynayo Taliban si ay u suurto gasho daadgureynta muwaadiniinta Mareykanka ee ku sugan garoonka Kabul ee dalkaas. Taliban laftooda waxay sheegeen inaysan marnaba ogolaan doonin in waqti ay ugu daraan dadka Mareykanka iyo ciidamada shisheeye oo ah in dalkaas ay ka baxaan ilaa kama dambeys 31 Agoosto, taas oo ah mid hadda kordhinaysa walaaca. waxaana Taliban ay aaminsan yihiin inay ciribtiri karaan cid walba oo dalkaas ku sii sugnaata wixii ka dambeeya waqtiga loo qabtay. hayeeshee saraakiil ka tirsan sirdoonka ayaa waxay sheegeen in Taliban macquul ay tahay in arrintani dib u eegis lagula sameeyo. madaxweynaha Mareykanka walaaciisa waa uu sii kordhayay 24 saac gudahood, waxaana laga yaabaa in go'aan uu ka gaaro in la dheereynayo waqtiga ka bixitaanka ciidamadiisa. si kastaba Taliban waxay sheegtay in muddo kororsiga meel ugu dhacayo heshiiska, waxayna ku digeen in cawaaqib xumo lagala kulmi doono haddii ay ciidamadu sii joogaan. 10,000 oo qof ayaa laga daadguriyay caasimadda Afghanistan ee Kabul, balse weli qaar kale ayaa ku harsan oo doonaya inay ka baxsadaan dalka.
inta badan dadka qaxaya gaar ahaan kuwa la shaqeeya ciidamada shisheeye ayaa ku nool cabsi ah inay ciqaab kala kulmi doonaan kooxda. wasiirka arrimaha dibadda Faransiiska Jean-Yves Le Drian ayaa wariyaasha u sheegay isagoo ku sugan Imaaraadka Carabta, waxaynu ka walaacsannahay waqtiga kama dambayska oo ay qabsatay Mareykanka ee 31 Agoosto. waqti dheeraad ayaa loo baahan yahay si loo dhammaystiro howlgallada socda. wasiirka arrimaha dibadda Jarmalka Heiko Maas ayaa isna sheegay inuu ka hadlay in garoonka Kabul uu sii furnaado wixii ka dambeeya waqtiga kama dambaysta. Ra'iisul Wasaaraha UK Boris Johnson ayaa la filayaa inuu Mareykanku ku cadaadiyo in waqtiga la kordhiyo. xogayaha gaashaandhigga Ben Wallace ayaa sheegay in ra'iisul wasaaruhu isku dayayo inuu xoogga saarayo in Mareykanku waqtiga kordhiyo. la-taliyayaasha militariga qalcad ayaa sheegay in loo baahan yahay in maanta ama waqti kaleba go'aan laga gaaro ciidamada qalabkooda hubkooda ay dalkaas uga baxaan muddada loo qabtay gudaheeda. sargaal waaxda gaashaandhigga ka tirsan ayaa sheegay in haddii Biden uu ogolaado in waqtiga loo qabtay gudihiisa ciidamada laga saaro Afghanistan ay xari doonaan maalmo yar, haatan ilaa 5,800 oo ciidamada ay ku harsan yihiin dalkaas. sida laga soo xigtay aqalka cad ilaa 10,900 oo qof ayaa shalay laga daadgureeyay Kabul. Mareykanka ayaa daadgureeyay ugu badnaan 48,000 oo qof tan iyo hawsha markay bilaabatay 14 Agoosto. golaha xuquuqda aadanaha ayaa lagu wadaa inay ka yeeshaan kulan degdeg ah oo lagu aaninsanayo xaaladda dalkaas. Taliban waxaa Afghanistan ka saaray ciidamada Mareykanka iyo xulafadooda kadib weeraradii Al-Qaacida ee 11 September 2001, waxaana ka dhashay dagaal socday muddo 20 sano ah. daadgureyntan waxay bilaabatay markii ay kooxdu qabsatay hadda Kabul, waxaana kooxdu hadda ay sheegaysaa inay tixgelin doonto xuquuqda haweenkii gabdhaha, balse waxaa jiri doona warar ku saabsan xarig iyo dil ay kooxdu geysatay. kooxda xuquuqda aadanaha waxay sheegeen in qaramada midoobay loogu fadhiyay inay magacoodo guddi madax bannaan oo caalami oo baaraya waxaa ka dhacaya dalkaas Afghanistan. haddaba iyadoo ay kaasi jirto, kooxaha warbaahinta ee taageerta kooxda isu magacowday dowladda Islaamiga ee Daesh ayaa tallaabo qaaday kadib markii Taliban ay qabsadeen Afghanistan. kanaanadan warbaahinta waxay inta badan bilaabeen olole dhanka internetka oo ka dhan ah Taliban. ololaha Daesh ee ka dhanka ah Taliban ayaa sare u kacay 16 bisha Agoosto markaas oo ay Taliban qabsadeen caasimadda Kabul. ha yeeshee waxaa cirka isku sii shareeray laga soo bilaabo 19 bishan Agoosto. isla maalintaas ururka Daesh waxay soo saareen bayaan rasmi ah oo ku aadan Taliban, ayagoona ku tilmaamay Taliban inay tahay mashiinka dharka u tolo Ameerika. Daesh waxay sheegtay in wixii ka dhacay Afghanistan ay tahay guul u soo yeetay Mareykanka oo aysan ahayn guul ay Taliban gaarto, sababtoo ah Taliban waxay ku guuleysteen inay riixaan fikradda in wadada loo maro kooxaha xag jirka oo ay tahay wada hadal. warbaahinada ay taageerto Daesh wixii ka dambeeyay 16 Agoosto waxay daawaceen 22 maqaal oo dacaayad ah oo inta badan loo diyaariyay qaab boorar ah. boorarkan ayaa lagu baahiyay barnaamijka fariimaha Telegram ee ku jira serverka ee Daesh taageertay Rocket Chat. si kastaba ha ahaatee, ilaa iyo haatan ololahan ma lahan wax astaan ah ama hashtag, balse maalmaha soo socda waxaa laga yaabaa in loo sameeyo hashtag si sare loogu qaado ololaha ka dhanka ururka Taliban. boorarka dacaayadda ku sokow waxaa jira fiideo u muuqda mid ka duwan boorkan, waxaana baahiya soo saaro sare oo taageera Daesh oo ku turjuma Al-Zafrati. muuqaalkani waxaa lagu arkay nin Ingiriis ah oo ku hadlaya oo isku dayaya inuu caddeeyo in Taliban la heshiiyeen Mareykanka. si taas uu caddeeyo, wuxuu adeegsanayaa buugga 88 maalmood Tukandahar oo uu qoray Roberto Garner oo ahaa madaxii hore ee CIA-da Islamabad. waxaa la rumaysan yahay in maalmaha soo socda ay bilaaban karaan dacaayado badan oo ka imaanaya dhinaca Taliban. si kastaba ha noqotee, taageerayaasha Al-Qaacida iyo kooxda laanteeda Yemen ayaa ugu hambalyeeyay Taliban guusha taariikhigeed. waxaa kaloo jira kooxo jihaadoon iyo kooxo Islaamiyiin ah oo iyaguna taageeray Taliban. haddaba taageerayaasha baraha bulshada ee Daesh ee weeraray Taliban. tuhmanayaal caan ah ka socda kooxda warbaahinta ee taageera Daesh ayaa ka qayb qaatay ololihii ugu dambeeyay. waxay isticmaaleen bogagga sida Al-Badr iyo Talaaya Al-Ansar, Al-Murafaat, Al-Taqwa, Hadam Al-Aswar, Al-Idiyat, Al-Zafrati, kuwaas oo soo saaray boorarkii ugu badnaa ilaa iyo dad badan ay daawadaan. kooxaha waaweyn sida Al-Badr, Talaaya Al-Ansar ilaa iyo haatan waxay sii daayeen tirooyinkii ugu badnaa ee dacaayadahaas. boorarka la baahiyey waxaa ka horeeyay 19 Agoosto waxaa diiradda lagu saaray xadgudubyo diimeed oo la sheegay inay Taliban geysatay. kooxaha warbaahinta waxay sidoo kale farta ku fiiqeen fariinta dib u heshiisiinta Taliban oo dadka laga tiro badan yahay sida Shiicada Hazare ee Afghanistan, kuwaas oo ururada Daesh ku tilmaamay inay bidca yihiin. tani waa habdhaqanka taageerayaasha ISIS ee markasta sameeyaan. qaar ka mid ah boorarka ayaa sidoo kale watay sawirro muujinaya joogitaanka Taliban ee Dooxa ama xafladaha Shiicada ayaa lagu yiri.
dhowr boor ayaa muujinaya tuunka daacish in taalibaan aysan marnaba si buuxda shareecada ugu hirgelin afghanistan. guud ahaan taageerayaasha daacish waxay ku adkeysanayaan in taalibaan aysan hadda ahayn kooxdii uu hogaamiyo mulla cumar 20 sano ka hor. taasina waa isbedesho. hadda taalibaan waxay si qarsoodi ah u fulinaysaa qorshaha maraykanku uu wato ee lagu wiiqayo dowladnimada ayaa la yidhi. bishii Agoosto 22-keeda taageerayaasha daacish waxay muuqaal ku baahiyeen Telegram-kii Rocker Jad waxaana ciwaan loogu dhigay Afghanistan oo u dhaxaysa laba qorshe. muuqaalka waxa uu ka yimid turjumaan al-Iswaarti oo iyana loo wada wadaagay taageerayaasha daacish iyo sidoo kale sii daayayna hordhac loogu talagalay taalibaan iyo muuqaal kale oo cusub 19 Agoosto si kooxda loo kashifo. muuqaalka ayaa laga maqli karaa Robert Garanier oo waaya aragnimadiisa ku aadan in wadaxaajood lala galo taalibaan la wadaagaya Mareykanka ka hor duulaanka Afghanistan ee 2010. Garanier wuxuu sidoo kale ka sheekeynayaa sheekooyin badan oo ku xasuusan buuggiisa 88 maalmood ee Kandahar oo wadahadaladani ay ka mid yihiin. fiidiyoyadaas waxay ahaayeen kuwo isbarbar socda waxaana mid ka mid ah dagaalyahanada uu yidhi Mareykanku wuxuu ku guuleystay hirgelinta qorshe isagoo adeegsanaya hoggaanka cusub ee ka tirsan Taliban. hoggaanka Taliban wuxuu ku yimid mabaadi'dii Mulla Cumar waxaana uu doonayaa inay joojiyaan asaaska khilaafada waxaana Mareykanku ku saali doonaan inay la dagaalanto kooxda Daesh ee Afrika, Ciraaq, Suuriya iyo Bariga Aasiya. fiidiyowgan isla ninkaas wuxuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay sidan: Ameerika waxay ku mashquulsan tahay qorshaha ISIS, haddana Mareykanku waa uu daalan yahay wuxuuna isku dayayaa inuu dagaalka soo abjaro balse ma haysto waddo kale. annagu Mareykan waan tegi doonaa waana weerari doonaa ayuu hadalkiisa ku soo xiray. naga daawada guud ahaan maanta muuqaalkeeni waa naga intaas nabadgelyo.